bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta badan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana weli inoo socda barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan. Haddaba barnaamijkeenan maanta waxa uu ciwaankiisu yahay maadaama aynu ku jirno 10kii habeen ee ugu dambeeyay Ramadaanka, muxuu yahay fadliga habeenka Laylatul Qadriga? habeenka Laylatul Qadriga waxaa loola jeedaa habeen ka mid ah habeenada Ramadaanka, khaasatan 10ka ugu dambeyso waxa ayna ku jirtaa tirada isdhaafka ah, kaasoo ah habeenka ugu khayrka badan uguna fadliga badan xagga cibaadada la sameeyo sanadka oo dhan. Qofkii uu Allah waafajiyo kana aqbalo habeenkaas wuxuu eebba u dhaafayaa dembigiisii hore, wuxuuna camalka habeenka u dhigmaa in ka badan 83 sano. Rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri, qofkii istaaga habeenka Laylatul Qadriga isagoo rumaysan ajarna ka raadsanaya waa la dhaafayaa dembigiisii hore. Waxaan halkaa ka fahmaynaa oo xadiiskaasi inoo cadeynaya in qofka habeenka uu istaaga Laylatul Qadriga uu eebba waafajiyo isaga oo rumaysan in loo dhaafayo dembigiisii tagay. Intaa waxaa dheer oo ajirkeeda iyo xasanaadkeeda helaya acmaashii uu sameyn lahaa 83 sannadood in ka badan ama 10 bilood. Laylatul Qadriga waa habeenkii la soo dejiyay Quraanka, waxaana Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa in uu na waafajiyo habeenka Laylatul Qadriga oo acmaasheena naga aqbalo xasanaad iyo khayraadka badan ee 83 sano u dhigmana Ilaahay ina siiyo. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma aamin. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Nuur Xasan Sheene.